gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Najax oon ognahay ninkii dhibaatada iyo dhibka u geysta gobolka Shabeellada Hoose ee haarka iyo boobta oo gobolka Shabeellada Hoose oo ka dhigay ay wali ay ka muuqato ay mar inta la keenay mar labaad la keenay mar saddexaadna hadda la keenay ee la rabo ummadda Shabeellada Hoose in lagu baabi'iyo iyo in lagu hoog tiro annagoo og dhibaatada oo ka sameeya gobolka Shabeellada Hoose inuu lafta gareen mar kale oo dalkan u soo hooyo wax taas waxay la mid tahay inuusan wax dana uusan ka leen gobolka Shabeellada Hoose haddaan ahay gudoomiyaha beelaha hawiye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaan ugu digayaa uguna baaqayaa ninka la yiraahdo madaxweynaha lafta gareen waxaa la yiri soo annaga heer koonfurka waxaan niraa ninka kushku u gambada kawaabo buurkiisa loogu gambadaa macnaha kush iyo kawaabo labaduba wax ma qariyaan kushkan wax ma qariyo kawaabo buurkiisana wax ma qariyo taas waxay la mid tahay najaxoon ognahay gobolka Shabeellada Hoose dhibaatada uu ka galay ay ka kow ka ahayd wala weyn oo iskaga diray gaal jacel iyo sharcaleemood marko oo habar gidir iyo biimaal isku diray baraaba dhibaatadii oo ugu dambeysay hadda oo ka dhigay aan ognahay ceelasha biyaha mursada iyo wacdaan oo iskaga hor keenay dhibkaas asagoo og in saaki haddana marka la soo celsho waxay la mid tahay gobolka Shabeellada Hoose dan kama lihin gobolka Shabeellada Hoose dad quwadaha ku nool kala duwan quwadaha oo ku nool kulay go'aan ka qaateen go'aan ka gaareen annagu wax shaqaana kuma lihin haddii la soo magacaabo iyo haddaan la soo magacaabin wax wada shaqeyn oo naga dhaxmari karto malaha wax soo magacaabistiisa annaga dan aan gooni aan ku leenahayna ma jirto cidna noo soo dhaweeymayno la fadhiisamayno tala teenaana waxba kuma laha doono insha Allah annagana talatiisa ma qaado doono haddii lafta gareen waxaa la yiri oo anigu macnaa markaas saas leeyahayna anigu qabiil ahaan uma nacbin shakhsi ahaan uma nacbin laakiin waxaan nacbahay siyaasadda guracan cunsuriyadda salka ugu hayso ee uu ku dhaqmi jiro gobolka Shabeellada Hoose ee saakay oo ugu riyaaqay ninka la yiraahdo lafta gareen oo uu leeyahay gobolkaas nima adiga ahaan kuma roono dadkaas dhibaato waay ayagana dhibaatada in la eg ana aqaano uu asaga maalin walba u soo meerinayo annagoo og haarkii oo baraabo ka soo biyay imidii marka uu la damacsanayo looga diiday imida hadda afgooy uu rabo inuu ka sameeyo midna ka yeelmayn iyo wala weyn meel kasta oo jooga deegaanka gobolka Shabeellada Hoosena waxaan ugu baaqaynaa in ay ka digtoonaadaan siyaasadaha guracan ee lafta gareen iyo najax ay isku biigsadeen ee dalka gobolka Shabeellada Hoose inay ku baabi'iyaan ay rabaan in ay ka foojignaadaan kana fiirsadaan meelna ay ka istaagaan sida aan ugu istaagno kale iyo mid lamid ah ay ugu istaagaan annagu wax shaqaana kuma lihin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi